Salaamu calaykum nabad daawadayaal lahaantiinba waxaan idin haynaa maanta barnaamijkeenu ku eegayno xaaladda ugu dambeysay ee Soomaaliya ka taagneyd Abriil 20 saacadood ee la soo dhaafay dhibaatooyinkii ugu dambeeyay iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee ka taagnaa saacadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho oo kuwa aan mubaanasab ahayn iyo jawi ay abuurtay dadka Soomaaliyeed ay ku abuurtay mid aan aad u fiicnayn haddaba waxaan isla eegi doonaa khaladaadka waaweyn ee mucaaradka iyo muxaafidkuba galeen ama muxasharixiinta iyo dawladduba galeen ugu horeyn haddii aynu ku horeyno dawladda arrimaha ugu waaweyn ee dawladnimada waxay ahayd inay ogolaato inay si silmiya iskaga bannaan baxaan oo madaxda dawladdu aanay dheg jala qusin dadka marka ay daalaan iyaga iska kala xaroon lahaa maadaama oo uu dastuurku yahay mid u damaanad qaadaya inay muwaadiniintu xaq u leeyihiin inay fikirkooda ku cabiraan af qoraal iyo isu soo baxyo waxay ahayd inay dawladdu aanay aad u weyneyn totally halkaa khaladaad weyn baa ka dhacay dawladda dhanka kale qolyaha mucaaradka waxay khaladaadka ugu waaweyn ku galeen ku dhawaaqidda inaan dalka maamul iyo dawladtoona ka jirin in Soomaaliya laga soo qaado sidii Liibiya iyo magaalooyinka dunida ee dawladnimada iyo nidaamku aanu ka jirin xukuumaddu waxay xaq u leedahay ilaa in xukuumad ka bedesha ay timaado laga helayo talada inay haynayso si looga fogaado qaska iyo rabshadaha waa dalku wuxuu dalku yahay dawladnimada haddii dawladnimadu meesha ka baxdo waxa loo sinaanayaa hay'adihii institutionskii dawladda oo dhan waxay noqonayaan waxaan cidi ka mas'uulahay mas'uuliyadda dawladnimo waxa weeye inay dawladdu dawlad kale ku sinto waa qoriisu dhiib si looga fogaado wax yani marka la leeyahay waa loo sameeyay dalkana dawlad kama jirto arrintaasi waa mid walaac weyn abuuraysa haddaadan codkaaga ku dhihi karin kana waa diidanahay kana waa ogolahay maxaa ku dhahe qori iyo madfac maan soo qaadanaynaa dadkaani waa ka yimaadeen waa ka bislaadeen ma rabaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wiilasha yaryarkaa ee meesha la jooga ee dharka gashan dadka ha ku riixina dhinacay ka yimaadeen ha u celinina waa ka yimaadeen uma socdaan ma ogola annagaa la joogno ku dhex jirna ka tirsan aadi mayna meel xun ma rabno cunfi iyo colaad iyo dagaal iyo dhiig Soomaaliyeed si sabab uu u daata ma rabno jidkaasaan maraynaa xaq dastuuri ah waxaa la idinku leeyahay ammaankooda inaad sugtaan dadka soo baxay ilaalisaan cadowga la sheegaya ka ilaalisaan wixii tasiilaad u samaysaan jidadka maritaankooda u fududaysaan laakiin maanta inaa idaacadda usoo hor istaagtaan dadkan waxaynaynaa sida uu sheegay xildhibaanka waa dembi adiga kuu gaar ood gelaysid meeluu dugsan yahayna ma leh dadku waa mas-uuliyiin waa tegaynaa haddii alla yidhaah waa tegaynaa ma baaqanayno ma hakanayno annagaa idinka horeyno meesha joogno ku hormarayno waa tegaynaa haddii alla yidhaah warkooda dheg jala qofu siinaysa malaha run laguma baran dadka inay wanaag u fanaan laguma baran dadka inay ixtiraamaan laguma baran dawladnimada inay dhowraan laguma baran warkoodana qof yeelaysa male la dhagaysa maayo xishoodaan sharciga ha dhowraan dadnimada iyo dhaqanka suuban ha ilaaliyaan dadka xuquuqdooda ha ilaaliyaano xuquuq damboo lagu tumanaa waa la diiday ma jirto waxaan leenahay dhallinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka culamaa udiinka bulshada rayidka dadkoo dhan oo magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ku nool barxadii daljirka daasoona noo ballana maalinta 8 inta rabta in ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay mustaqbal waafi ah yeeshaan waa inay ka hortagto inta aaminsan fikirkaas ka soo horjeeda dawlad goboleedyada waxaan rabaa madaxdooda inaan u sheego waa madax Soomaaliyeed oo aan waqtigii muddaxiloodkoodii dastuurku siinaya aanu dhammaan oo sharci ah waa inay ogaadaan mas'uuliyadda ugu weyn dalka iyagay saaran tahay mas'uuliyad miisaaman waa inay ku shaqeeyaan oo macnaheedu tahay iyagaa laga rabaa xalka ma aha inay meel u fadhiyaan dawladdu waqtigeedu dhamaado
beesha caalamka waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga dignay arrimahan iyadoo qoraal ah iyo iyadoo af ah haddii aad tusaale u baahnaydeen xalay iyo maanta idinkugu filan haddii aad sii fiirsataan idinkuna waxaad qayb ka noqonaysaan dhibaatada iyo gumaadka shacabka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba waa joogtaan dadkeennan siyaasiyiinta ah oo idin matala inaan banaan baxnana joojin mayno inaan idin matalnana joojin mayno cidna cabsin gelin karta oo naga leexin karta dalkan in lagu hago dariiqa ay xaq u leeyihiin dhalinyarada naga da'da yarna ka leexan mayno waqti adag ayaa lagu jira waqtigaas adag wuxuu u baahan yahay aqli iyo xikmad xoog iyo qoray uma baahno tanaasul iyo turid ayuu u baahan yahay tuurmo iyo tarantureyn uma baahno sidaas daraaddeed ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan inteena badan oo halka raadinaysa meel ka soo wada jeesan lahayn si aanu dalkani mar kale ugu noqon meeshii mugdiga ahayd uu ka yimid waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waana mid keeni karta burbur in dawladdii ay meesha ka baxdo dawladda sideedaba dadka ale haddaba dadka Soomaaliyeed waxa ka maqan isu tanaasulku waa maxay dad badan isu tanaasulku waxay moodayaan in qof kale uu tanaasulayo compromise erayga isu tanaasul waxa weeye inuu qofku ka tanaasulo wax kasta oo carqalad ku noqon kara saddex wax waa dalka dadka iyo diinta inuu qofku ka tanaasulo wax kasta oo dhalin kara cawaaqib xumo iyo waxaan la mahdin doonin maaha inuu qofku leeyahay hebel u tanaasul ama heblaayo u tanaasul maaha in lagu leeyahay ree hebel u tanaasul ama ree hebel isu tanaasula isu tanaasulku waa qofku inuu ka fogaado wax kasta oo liddi ku ah waxaas ma rabshad bay abuuri karaan waxaas ma dalkay ka soo horjeeda waxaas ma qarankay liddi ku yihiin waxaas ma diinta liddi ku yihiin ma amnigay liddi ku yihiin qofna qof uma tanaasulo sideedaba qof kasta wuxuu tanaasulaa danta guud ee caamka ee bulshada ka dhaxaysa ayuu tanaasulaa taas baana muhiima in ka maamulka haya iyo ka dibadda ka joogaaba ay fahmaan isu tanaasulku waa waxa dadka iyo dawladnimadu ay ku dhisan tahay marka waa in dawladdu iyo dadka mucaaradka ay fahmaan micnaha dhabta isu tanaasulku waa waxa dadka isku haya Soomaaliya hadda waqtigan ma qaadi karta xaaladdan ay ku jirto Soomaaliya wadan burbur ka soo kabtay oo hadda dhismaya ama waa fragile state wax la yiraahdo wadamada soo kooraya ee hadda dhismaya Soomaaliya dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka taagnaa muddooyinkii iyo mas'uuliyadii sano ugu dambeeyay waxay ahayd qabiilka iyo qabyaaladdu waa waxa aad u kala fog dad badanna aanay fahansaneen qabyaaladdu waa ta burburka keenta qabiilku marka dhanka wanaagsan laga eego waa wax fiican dadka Soomaaliyeedna ay ku kala baxaan dawladnimada lagu dhisan karo haddaba si taa looga fogaado qabyaaladda burburkeeda waa in dadku ay ka fogaadaan wax kasta oo carqalad ku keeni kara bulshada iyo dadnimada iyo dawladnimada hadalka ugu waaweyn haddaba dawladnimada muxuu yahay dadku waa in la fahmaa in dawladdu ay xaq u leedahay inay dawlad noqoto dadkuna ay xaq u leeyihiin inay shicib iyo muwaadiniin dalkooda iyo dadkooda jooga yihiin khaladaadka ugu waaweyn ee dadka iyo dalka iyo dawladnimada iyo shacabkeeduba ay galayaan waxa weeye dawladdii baa khaldamaysa shacabkii baa khaldamaya muwaadiniintii baa khaldamaysa mar haddaan xeerkii si adag u shaqaynayn dalka kala jidaynayay dalka يعني حلد gudboon ummadda Soomaaliyeed inay fahanto iyadoo muddaxilaadkii hay'adaha dastuuriga dalka uu dhamaaday madaxweynaha xilkiisu dhamaadana shaqadiisu kaliya ay ahayd dalkan inuu doorasho galo ayaa caawa ummadda Soomaaliyeed waxay aragtaa meesha aan taaganahay ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada Soomaaliyeed shaqada idin bannaan kaliya waxa ay tahay inaad amniga sugtaan qof Soomaali ah weerar kuma qaadi kartaan ogaada hadda waxaad tihiin ciidan Soomaaliyeed oo iyagu dalka mas'uulka ah maadaama hay'adihii dastuuriga ahaa oo ugu horeyso madaxtooyadu xilkeedii uu dhamaaday sababta kaliftay caawa waxa dhacay waxay tahay in lagu baaqay in shacabka Soomaaliyeed inay isugu soo baxaan banaanbax nabadeed si ay ilaashadaan horumarka iyo dimuqraadiyadda dalkan uu gaaray
loogana ilaaliyo in dib loogu celiyo waxayna baday 30 sano aan soo dhaafnay iyo 20 sano oo ku horeysay si marka aan taas uga jawaabno si khaladkii caawa ahaa in dhiig lagu daadiyo aan ugu jawaabno ilbaxnimo horumar dimuqraadiyad iyo hiigsiga ay dadka Soomaaliyeed rabaan waxaan shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho ugu baaqaynaa inay kulligood isu soo baxaan si aanay mar dambe u dhicin dhibaatadii caawa dhacday si aan u muujino dareenkeena una xaqiijino dalkana inaanu dib u noqon waxaa kaloo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego isgoyska maanta dalku uu taagan yahay qof walba mas'uuliyad ayaa ka saaran in laga samata bixiyo ma aqbalayno in dadka la caburiyo ma aqbalayno in dalka la afduub lagu haysto dalkan waa la wada leeyahay waxaana nalka rabaa kulligan inaan difaacno difaacaasi si uu u dhaco qof walba oo Muqdisho jooga yaani bari gurigeeda ku harin waa maxay qarannimadu waxa weeye oo waxa adigana ku ilaalinaya dadkana kala ilaalinaya bulshadana kala ilaalinaya adigana muwaadinkana waa inuu ilaaliyaa muwaadinka iyo dawladana waa inuu kala ilaaliyaa oo constitution in lagu dhaqmo adiga xeer baa ka dhigaya muwaadin haddii xeerkaas uu meesha ka baxo muwaadin Soomaaliyeed matid madaxweynaha xeer baa ka dhigaya madaxweynaha hadduu xeerkaas meesha ka baxo maaha madaxweyne haddaba si looga fogaado wax kasta oo keeni kara caqabadaha noocaas dawladnimadu maxay u baahan tahay dawladnimadu waxay u baahan tahay kow inay dadku fahmaan inay xuquuq leeyihiin xaq iyo xuquuqda uu muwaadinku leeyahay in la ilaaliyo muwaadinkuna waajibaadkiisa inuu garto يعني ما جرى دونك وح عن حر يحتون الله هيد وادك حد يحر بوليه دولدنا حد يحر بلا دولد هالكام مسؤول على فكرة موادنا هالكام على فكرة ستالو فهمو وحيلو بهاي هاي تذكر ماليات إلي فهمان إن وحلا وضع دستو إن يجو سياسيين تا كو دولد دا وحاصلا إنتي كهريان نظاميو يحيدو organization madax bannaan intay samaystaan yani ijtimaaci bulsheed si fikradooda iyo aarahooda ay isku geeyaan dawladahana ay u gudbiyaan dadka kale ee siyaasiyiintana ay u gudbiyaan waayo politically is a competition with among others yani waa siyaasad ka dhaxaysa how to get the power iyo how to protect my power yani sidaan u ilaashadaa السودان كهلا باورك والله با دينع ونوعا كفكرية سيد لبدaba looga fogaado dadka Soomaaliyeed iyagu aan waxba doonayn waxay u baahan yihiin kan wax doonaya kan wax ilaashanayaba inaanay dantooda ka dhaxarag ee dantoodu ay ku jirto inay iyagu badbaadaan taas muhiim ah siyaasaddu sideedaba waxay faaltan ka dhaxeeyo group kaasoo sidaan u helaa iyo sidaan u ilaashada وهيردن يلولا